السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa caawara ligelinka bixinaa in aan soo daahay waqtigeeni uu ahaa 3:20 inaa imaado ama 9 habeenimo iyo 20 oo aan imaaday xilli dambo. waa ka cudur daaranayaa insha allah. waxaa sugeynaa ardayda kale ee programka ka qayb qaadanayay intay kasoo galayaan. markay soo galaan insha allah programkeenu waa gudagali doonaa, hawsheenana halkaas kasii wadan doonaa. hallo, soo dhawaada. ismaqal ma jira? soo dhawaada. ismaqal ma jira? programka waan gudagalaynaa insha allah, inkastoo caawa waqtigii ballanta ay kasoo dib marnay. asxaabta kale ma sugeyno, waa sii gudagalaynaa. caawa programka waxaa kaga hadlaynaa qaabkee yani online business aa u bilaabi kartaa adi oo wax maalgelin aa sameyn ama lacag bixin. marka waxaa jiro qaabab kala duwan. yani sometimes haddii skill aa leedahay, skillkaaga offer garayn kartaa, dadka ka iibin kartaa. sometimes waxaa jiro waxyaaba kala duwan. hadda caawa waxaa rabaa marka Teespring waxaa la inaa idin tuso qaabka u shaqeeyo, qaabkaa ku bilaabi kartid. okay, Teespring markaa artid inaa bilaawdid, ugu horeyn waxaa u baahan tahay okay first time waxaa u baahan tahay waxaa arki doonaa waxyaabaha aa u baahan tahay in aad fahantid inta aadan gudagalin yani sameynta businesska noocaas. waxyaabaha basic muhiimka ku ah ee ku anfacayo number one, yani waxaa u baahan tahay inaa leedahay basic waxaa u baahan tahay number one inaa yani designka oo sida nashqadaha funaanadaha loo sameeyo inaa wax ka taqaanid. sidoo kale waxaa u baahanaysaa 2 software, photoshop inaad taqaanid. haddaa aqoonin inaa canva waxa la dhahaa aad taqaanid. labadan markaad taqaanid yani waxay kaa saacidayaan designkii funaanadaha aa rabtay inaad samaystid. waxaa laga yaabaa dad inay kusoo biirayaan ina admin siino. okay, ugu hore waxaa u baahanahay photoshop inaa wax ka taqaanid. haddii photoshop aadan aqoonin, canva waxaa waaye marka waa web application oo easy yani aad designs kala duwan aa ugu sameysan kartid. skill badan ma u baahna. sometimes waxaa waaye inaa fahantid aa ku falaadid aa u baahan tahay. mar haddaa ku falaadid aa fahantid waa easy ku fudud yahay inaa canva isticmaashid. okay, sidoo kale waxaa u baahan tahay yani inaad taqaanid waxyaabaha waxyaabaha trendingka oo hadda adduunka la xiiseynayo. marka kana si aa u heshid waxaa u baahan tahay waxaa la dhahayo Google
trend Google trending ama Google waxaa u baahan kartaa keyword planner waxa la dhaho, yani labadan waxay ka caawinayaan in aa ogaatid waxa dadka ay soo raadinayaan ama waxyaabaha trendingka inaa ogaatid. Marka website-ka waxaa la dhahaa Teespring. Hello. Hello. Ashado, shaashadaada noo share gareey. Okay, ilaan shaashada ma share gareysma miyaa? Okay, hadda shaashada waa share gareysantaa uma leenahay. Si fiican. Okay. Yowad. Marka inaan kusoo laabano waaye, yani caaw mawduuc wuxuu ku saabsanayay oo aan ka hadlaynay qaabkee online business aa u bilaabi kartaa. Online business markaa rabtid inaad bilaawdid, yani waxaa u bilaabi kartaa siyaabo kala duwanaa jiro. Number one waxa waaye in skillkaaga ama xirfadaada aa iibisid. Number saddex inaa consultant dad aa siisid haddii aa wax ku wanaagsan tahay, tusaale marketingka camal, hal abuurka camal, brandingka camal, waxyaabahaas haddii aa ku wanaagsan tahay inaa yani consulting service aa iibisid. Haddaadan aqoonin yani waxaa iibin kartaa book aa qortay, maxaa la broadcast aa sameysay, waxyaaba kala duwan aa iibin kartaa. Laakiin waxaasna haddaa hayn waxaa jira haddana options kala duwanaa jiro. Laakiin caawa waxa aa ka hadleen waxaa la Teespring. Teespring waxa waaye website kaa saacidaaya in yani nashqad ama design aa sameysid, website-kaas aa soo dhexgelisid, then maxaa la dhahaa productigaas market gareysid aa iibisid. Marka waxaa jiro website badan oo hadda tusaale waxaa ku arki jiray website-kan la dhahayo website-kan ku arki jiray wiilkaan wuxuu sameyn jiray dhar uu ku iibiyaa, tusaale dharka noocan camal kan ugu qoran tahay jigjiga kan camal. Markaa janaalkiisa aa gashid, tusaale qeybaha hoose wuxuu kusoo bandhigi jiray maxaa la dhahaa dhar asi oo iibiyo, oo markaa YouTube-ka camal aa gashid aa meelahan aa ku arkaysid. Hadda I don't know. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Wanigu meelahan camal dharkiisu soo saari jiray. Marka dharka noocaas waxa caawa ka hadleen oo ku saabsan yahay, yaa kaloo ka fiirinaa. Okay. Marka waxaa rabaa horta inaan aragno dharka dadka qaar aa ku iibiyo meelahan. I don't know wax uu ii tusi laayahay. Waa jiraan istada aad u badan yihiin. Oo badan riyo. Marka waxaa raadinaya dharka noocaas inaa helo. Dirsila keli kartaa. Ya. Almar hadaa kula. Ya. Dirsila keli kartaa. Dirsila keli kartaa. Fiidiyowga xogaa hoose. Waa ka waa. Asaal ahaan jiray maxaa la productiga noocaas. I don't know hadda waa laga saaray. Maxaa waay? Qarmi ah. Okay. maanta ma soo saarayo. Waxaa kaloo ku arki jiray yani isna sidoo kale fearless motivation. maybe yani dadka inay yaqaanaana laga yaabaa ama hore u aragteen. si fiican hore u aragteen. Okay, laakiin ma taqaanin qaabka loo sameeyo. Ma qaabka loo sameeyo ma naqaan, laakiin dadkaas ayagoo soo dhigaya xaysiinaya la aragnaa oo okay. Hadda kulli ma qaano, laakiin insha Allah waa soo raadin doonaa. Marka ujeedada guud iyo waxa u soconaa waxay tahay inaan aragno qaabka loo sameeyo dharka noocaas. haddii yani brandingkaaga magacaaga ku qoranaysa mar walba waxay ku fiican yihiin dharka noocaas markaa rabtid inaad iibisid in yani aa leedahay dad badan oo kugu xiran, ama aa leedahay yani qof influencer aad tahay oo waxaan hala iibsada markaa dhahdid dadka ay kaa iibsanaya. Laakiin
marka adi aad tahay qof yani iska beginner ah oo testing ku jiro way kugu adag tahay yani inaa alaabtaas iibisid. Website-ka waa kana waxaa la dhahaa Teespring, waa e-commerce company waaye, wuxuu ka shaqeeyaa yani waxyaabahaas. Waa platform qof walba oo ogolaanaya yani waddan walba joog, Soomaaliya joog, Mareykanka joog, yani waxaa abuuri kartaa prototype aa sameyn kartaa, product aa sameynaya oo yani design adi aan la imaatay. Designkaas marka ayaga waxay ku sameynayaan website-kooda ku bandhiganaya, adi waa market gareynaya. haddii qof yani productigaas uu soo dalbado, ayagaa daawacaya, ayagaa delivery u sameynaya. marka waxbaa ku helaysaa ayagan yani percentage ugu badan ayagaa qaadanaya. marka website halkaasaa kasoo galaysaa teespring.com, keligaa ku dhufanaysaa. website marka qaabkaanu noogu soo bixi doonaa. website qaabkaanu kugu soo baxaa. marka waxaa jiro qaabka u shaqeeya, haddaa rabtid inaa ogaatid hoosa u wadaysaa. qaabka u shaqeeya markaa rabtid inaa ogaato maxaa la dhahaa hoos u wad. horta waxyaabaha aad ku sameyn kartid waxaa kamid ah saa ujeedid koofiyadahan, sidoo kale waxaa ku sameyn kartaa funaanadaha kala duwan, kuwa hudheyga loo yaqaano, iyo maxaa la dhahaa adig noocyo kala duwan aa ku sameyn kartaa. sidoo kale waxaa ku sameyn kartaa mobile caseskan, waxyaaba badan, surwaalada noocan ee dumarka ku sameyn kartaa, yani designs kala duwan aa ku sameyn kartaa. markaa rabtid inaad ogaatid marka website-kan qaabka u shaqeeyo, waxaa jiro meel ay ku qoran tahay how it works, meeshaas saa ujeedid keligaa ku dhufanaysaa. marka waxaa ogaanaysaa markaa halkaa ku dhufatid qaabka yani website-ka u shaqeeyo. marka waa kana qaabka u shaqeeyo. ugu horeyn waxaa waaye create a product, yani waa fikiraysaa adduunka tusaale hadda maxaa trending ee dadka maxay xiiseynaya camal aa ku fikiraysaa, then product yaa ka sameynaysaa. haddii funaanad ahaan lahayd, mobile case tu ahaan lahay, waa kana waxaa sameynaysaa marka designka markaa sameysid boost your sales. waxaa sameyn kartaa marketing aa sameyn kartaa. waxaa kaloo leeyihiin tools iyo partnership integration, tusaale YouTube integration aa sameyn kartaa, website-kaaga ku xiri kartaa. then haddii qof customer oo yani oo order place gareeyo, ayaga waxaa waaye everything else ayaga take care gareynayo, oo productigii inay sameeyaan, ay design gareeyaan, oo maxaa la dhahaa designka adaa soo sameeyay inay yani daawacaan, then ay u sameeyaan maxaa la dhahaa deliverygaana u sameynayaan, then adi waxaa helaysaa profit. okay, marka se isaga diiwaangelin kartaa. markaa iska diiwaangelinaysa waxaa ku dhufanaysaa meeshaas ku qoran tahay get start. get start markuu ku dhaho halkaas waxaa gelinaysaa marka emailkaaga. qaybtan waxaa gelinaysaa maxaa la dhahaa okay, qaybtan waxaa gelinaysaa emailkaaga tusaale. halkan waxaa gelinaysaa passwordkaagii. halkan confirm aa dhehaysaa passwordka, then I'm not arabod aa ku dhufanaysaa. su-aalo qaar oo ku weydiinaa traffic light-ka inaa check saartid waaye, then next dheh. okay, kadib waxaa dhehaysaa sign up. waxaa ku abuurmaya account-kaagii, lakin ani wuxuu idhahooyaa account hore abuurta. marka waa simple. ani marka waxaa dhahaa login form intaan yar markaa buuxsid meesha uu keeni doono aan tageynaa. marka tusaale halkan geli,
account markaa abuurtid yani wuxuu ku diri doonaa email verification. emailkaas waxaa u baahan tahay maxaa la dhahaa in yani accountkaaga verification kusoo sameysid. marka halkaa markaa imaatid waxaa ku dhufan doontaa meesha ay ku qoran tahay create products. haddii productyo hore aad leedahayna waxaa ka ogaan doontaa listingkaaga meeshaas. marka waxaa product aad sameysay qaabkaas aa u arkeysaa. marka waxaa product adi aad sameysay qaab noocaas aa u arkeysaa.